بيبت إسلام كقاتا ورآية إلهي ومقالة مريسا نقض يدنين عليهن من جلابيبهن أو كرسيغان كفردسا يدنين عليهن من جلابيبهن أو بصرا عيسى يدنين عليهن من جلابيبهن أو فصل قليسة كصوب عيسى يدنين عليهن من جلابيبهن إلا قرسنايو وأقل كيضا الله سيك حينايو يدنين عليهن من جلابيبهن أو سوقا كأذيغن يسا نقض ولا ليال إن الله لا أنت كدداشان حجابك إلهي دنيهين كددالا ساد السقا وسام بامارت الذين كقاوينيا ساد دينت الله النعظم بجنة إني النعيسى ساد عذابك ساد حمانت إيا فسقك إيا قاوناشا وجعلاتان يا إبليس يا شيطان إذن جعلانا يا هديك لي رسولك انت وعوك الضري وإليهين حقنا تدكيك إليا وركا ورما قبر زينة له أو قرح له أنجل باب وذنن أفك الجدود مرصتي درع خفيفة كسعتا أمل سروال إيا شاطي وضتا لا ميقا انتي كسوب بعد الرقو سينقونيان ولا ليال سوما أركن تضبجر إني قدال إذن سوء إيقيان سوما أركن إني إذن فيرينيان وما إلات وإليه ضدكين حقيك إليان والسببها النقونين الرقا إني عذاب قلان والسبب النقض الرقو إني هنونان مر الله مرك جلباب كيدا إيا حجاب كيدا إيا هنان كيدا إيا طاعة اللي كد ذا ليس الله أركو يا ملائكتو كفرح ذا حسنات لو قرا ربي جعل ذا شيطانكو كعررا لكن كوين ما أنت شيطان با صاحب لا ورصاحب نمر الشيطان كقوي حريرك إلهي هجاجية سيدا درتين أيو رسولكو انتا كدري وحد مودا مدحوذا رتيق الجيلة إبادية هداق كرسكيسة أو كالي أو إيلان والله إني جنة الله قلان اسكداي حتى عرفت ذي لما ينبوضه صلى الله عليه وسلم ناقول بونجل بابا إني جنة الله قشداي حتى أذقي ذي لما يسو ناقتان حجابا هو يدقيد جهنم تي حجابك قادا ويسا الله أكتيس عري كل ذاي تي حجابك قادا ويسا وحاط حل الله قدق يا عذابك ند الله مد حجابك قادا ويسا وحاط عمل قدق يا ضريع يزقوم يجيذا الله تلمامي سبحانه وتعالى وحل عبسين ويأدونك كعبيس شرابوها لكن دمرك كله لكن دمرك كله عذابك اللقلي إلهي سبحانه وتعالى حجابك سي انكري أوديذي وحكي ماذا دعان كاسا شراب لوغا دغيا إنا لله وإنا إليه راجعون رسولك صلى الله عليه وسلم دمرك إن بدن أيو لهدلي وحيابها أوفري أو أمري وحاكمت إن حقي وناقل قدذالو إن جيت إلهي تبني من لو آمنو إن رب سبحانه وتعالى لك عبصدو خيرك إيا وناق إن آذي الله صعدو دمرك إن الله لا إنتي حجابيهم بخيري وناق دويهين إلهي إنت أمركو شاقي أيو يري يدنين عليهن من جلابيبهن waxaad iska soo raaricisaan dharka jalaabibta lagu magacaabo moodalada maanta soo baxay iska ilaaliya waxaad arkaysaa dhar aan xijaab ahayn oo ay dumarku xijaab ka dhiganayaan way soconaysaa way xijaaban tahay haddana gollankeeda bannaan way socotaa way xijaaban tahay horaadyadeeda la arkaa way socotaa way xijaaban tahay barfuun baa ka soo carfaaya way socotaa way xijaaban tahay say sheeganayso haddana dharkii baa ku dhegan xaaladda noocaas ayaynan dhicin gabar walba oo ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka rabtay taacada alle ku dadaal waad ujeedaa nebi moxamed inuu janno leeyahay geli mayso waad ujeedaa inuu leeyahay arki mayso uduga iyo carafka jannada 500 oo sano meel loo socdaa laga carfiyaa jannada intaasi waa qiimihiina iyo qaayihiina dumarkii maanta qaar baa ololaynaya waxay ku dadaalayaan oo ay u ololaynayaan waxay tahay xuquuqaadkeennii ha nala siiyo war haddii ilaahay islaamkaa dhigoodan dibi caabudaynin war haddii laa ilaaha ila allah orahdaadu ay tahay war haddii muxamedun rasuulullah aadan ka tegaynin mar kastoo xayi cala asalaad aad maqashaad salliga ku istaagayso war mar allaala markaad soo baxaysa haddaad jalbaab iyo xijaab ku soo baxayso
haddii guriga laguugu asturee odaygaagii la amray inuu bannaanka ka soo kasbo meel allaala meeshuu geli karo xalaala uu galo qashinka la qaadaayo hadduu kaa qaado bannaanka laguu geeyo waxaad u baahan tahay oo kale maxaa waaye war xuquuqaadka dumarkuay raadinayaan maxay tahay ma in la qaawiyaa ma in xafiis la fadhiisiyaa ma in nin u soo galaa ma inay sirwaal qaadataa ma inay masarka iska dhigtay timaheeda bannaanka keentaa xuquuqaadkay raadinayaan waa inta war xuquuqaadka allah idin siiyey ma ogtihiin mar hore in laydin aasi jiray war gabar walboo da'daa gabadhaa meesha fadhisaa gaarta waa xilliga ay gawmaha iyo ciyaalku ay soo kacayaan inta god laydin qodaa laydinku duugi jiray ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala waidaa bushira axaduhum bilunfa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim haddii gabar loo dhalo waa xumaanayey wejigiisaa madoobaanayey gabar loo dhalay waxaad mooddaa 70 lacanadood inay wejiga ka saaran tahay ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بنانك مصوبحيا وايا قبر بالو دلي واحدين كغا دندرنا مجري واحدين كغا فول حما مجري ولا ليال ابيه ku dhalay haduu raga iska qariyo aabihi ku dhalay haduu iska qariyo dadka haduusan akhayaarta soo ag fadhiisanaynin haduusan dadka akhayaarta ag iimaanaynin yatawaara waa dhuumanaya waa isqarinaya xumaantii loogu bishaareeyey laba mid bay ahaan jirtay ayumsikahu calaa huun am yadussahu fi turaab inuu ciidda isaga duugo waxaan xunee dhashay inuu carada isaga aasa ayadoo nool intaa ka bacdi amase inuu iska haysto ihaano iyo dulli asagoon hadalkiisa la qaadanin labadaa mid ayay ahaan jirtay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala dullinidaa loo dhalay ayuu diidan yahay ayaduu rabaa inuu xabaalaha isaga aaso qaar baa la tilmaamaa intay u soo qubeeyeen ay dar u soo labiseen ay dahab u soo geliyeen godna ay u soo qodeenuu wadaa garkay ciidda ka tirtiraysaa oy leedahay aabbe asna wuxuu u wadaa inuu godka ku rida laa ilaaha ila allah dhaxaasaa alla idinka badbaadiya subxaana wa tacaala surwaalaad u qaylinaysaan oo waxaad u ololaynaysaa in xafiis laydin fadhiisiyo waxaad u ololaynaysaa in dharka laydinka dhigo waxaad u ololaynaysaa inaad baxdaan xaaladdu sidaa ma aha walaalayaal xayaatadan xayaataa ka dambaysa aabbe way tirtiraysaa caradii godkuu qodaayey yaa gerka uga taala aabbe ayadoo lahu qabanaya markaasuu ku tuurayaa markaasuu godkii ku ridayaa sayxadeedii qayladeedii oohinteeda la maqlaa laa ilaaha ila allah xaaladaasaa ilaahay idinka soo koriyey subxaana wa tacaala waida almaw'uudatu su'ilat tii xabaalaha lagu xabaalay ayaa la su'aalayaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala marka la su'aalo gabadhii nolosha lagu duugay aaway kii duugay warkii laga gardarnaa haddii maxkamadda la saaray kii gardarnaa ka warrama say xaaladiisu noqonaysaa intay goorgoorday jalaabiibta tasho walaalayaal waxaan aad uga digaya gabdhaha xijaabka moodeelada wata ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala waa xijaabkii raaska waa xijaabkii kida waa xijaabkii kida wax la dhaha ma jire xijaab waa xijaabka alla soo dejiye subxaana wa tacaala xijaab waa midka ku astura xijaab waa midka aan korkaaga laga arkin xijaab waa midkan kugu dheganayn xijaab waa midaan khafiif ahayn xijaab waa midaan dharka gaalada u ekayn xijaab waa midaan catar iyo barfuun lahayn xijaab waa midda ilaahay uu ku tilmaamay oo yidhi daalika adnaa an yucrafna taasaa ugu dhow in la aqoonsado inay gabar muslimad ah tahay inay gabar xaraa'ira oo xor ah tahay inay gabar ilaahay jecel tahay jalbaabkaa lagu aqoonsadaa jalbaabkaa lagu yaqaanaa jalbaabkaa lagu aqoonsadaa oo lagu fahmaa daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu ghafuuran raxiima ilaahay waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan maxaa labadaa loo daba dhigay maxaa aayadda labadaa loogu qatimay waa qatin aad iyo aad u qiimo badan wa kaana allahu ghafuuraa alla waa dembi dhaaf badne naag alla la naagtaan xijaabanin oo aan jirkeeda qarinin oo surwaal ama dirac qafiifa ama marag yara garabka saaratee bannaanka ku baxda hadday tawba keento saacadan aan joogno ay dawaar laha aado dhar xoog badan oo culus oo shuruudaha xijaabka wata ay labisato ilaahay waa dembi dhaaf badne subxaana wa tacaala la dhihi maayo 20 sano iyo 30 sano jilbaab la'aan suuqa joogtay kaa aqbali maayo xaashaa lillaah ilaahay ma aha subxaana wa tacaala
dembiguuna cafin waana noo dhaafaya wa kaana allahu ghafuuran raxiima waa alla naxariis badan oo dadka aan xijaab ka wadanin aan ku soo dedejinin cadaabka subxaana wa tacaala waad u jeedaa ayadoo la qaawan yahay ayadoo xumaan lagu jiro ayadoo diintii ilaahay laga tegey ayadoo xaqa iyo wanaagga aan lagu soconayn yuusan haddana ciqaabka nagu soo dedejinaynin war xijaabku waa quruxdiina naag walba say u xijaabataa naarta looga xijaabaa gabar walba say u xijaabataa ilaahay xumaanta uga xijaabaa gabar walba say rabbi uga cabsataa cadaabka looga ilaaliyaa gabar walba say ilaahay taacadiisii diintiisa u qaadatay jannada alla u heshaa subxaana wa tacaala taas ayay ku eg tahay muxaadaradii qiimaha badneed ee uu noo soo jeedinayay sheekhan alfaadil sheekh xasan ibraahim ciise kuna saabsaneed xijaabka iyo qiimihiisa ha ilaami walaal inaad kusoo biirto ood sabskrayb dhacdo jaanelka ilayska islaamka oo ah jaanel u taagan fidinta iyo faafinta dacwada diinta islaamka.